caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawarada dhan remote baa lagaga shaqeeya qof bini-aadan ima joogo oo maximum haddaanu qiyaasno 5 kilomitr meel u jirtay dadka kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaalla ta kale waxa weeyaan waxaa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray ee dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray ee shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwaveka iyo wax unba samaysan loo yeeray ee side effect qofka bini-aadanka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaalla taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhab oo la hayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiya ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarkaa la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaacayay wixiiba iyo wasiirka telecommunicationka indiya maamulgadii waxa la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlaya arrinta lasee ku dhici karta waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qof kale siduu u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibkaa keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay un arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keena cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxaa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwavekan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane mobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu mobilku dadku kaa yariyey ama anteenka mobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow mobilku kululaadaa dhegtana kuma hayn karti qofka telefoonka codkiisa u googo'a mobilku wuxuu isku dayayaa markuu bayterigaagu yariyay inuu soo qaato wuxuu kusoo jiito taawarka ugu dhow daadiswaagu mobilku u kululaado mobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu ka soo qaadanayo qofka joogaay siduu noqon karaa basleer daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xidhan waxaa loogu talagalay oo safetygiisa ku qoran 500 square meter inaanu qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynaysa cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay joogaan marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cabdooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihin iminka bal dalka u fiirso meel kastood aragtay hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay maaqoonlaan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka lafta ka dhimataa oo waxa weeyaan qofku wuxuu u dhintaa tahaarad hagba dilo qofka oo si kaliya wadna xanuun wax alaali wax ku dhacay been jirin wadna xanuun buu dhintaa waxa kaloo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira ay dhakhaatiirtu ka sheegayaan lafta dee qofka bini'aadamka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxaa la doonayaa walaal in arrintu dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhakhaatiirta loo yeero sida caalamka baalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in lasoo yareeyo microwaveka hadday meel tahay inaad aragtay mooyaane magaalooyinka waaweyn kale dee jaarkana wadamada jaarkana suuqaga waaweyn bay xabad yar ku arkaysaa waayo markaa inagu aan 150 magaalo keliya ugu isticmaalna xaafadooda meel baa yaaleen caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawarada dhan remote baa lagaga shaqeeya qof bini-aadan ima joogo oo maximum haddaanu qiyaasno 5 kilomitr meel u jirtay dadka kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaalla ta kale waxa weeyaan waxaa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray ee dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray ee shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwaveka iyo wax unba samaysan loo yeeray ee side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaalla taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog
dhaba oo lahayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama antiinooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiyay ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarkaa la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaaciyay wixiiba iyo wasiirka telecommunicationka indiya maamulgadii waxa la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlaya arrintan isay ku dhici karta waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qofkan isagoo u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibkaa keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay un arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keeno cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwave-kan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane moobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu moobilku dadku kaa yariyey ama anteenka moobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow moobilku kululaadaa dhegtana kuma hayn karti qofka telefoonka codkiisa u googaa moobilku wuxuu isku dayayaa markuu bayterigaagu yariyay inuu soo qaato wuxuu kusoo jiito taawarka ugu dhow that's why moobilku kululaado moobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu ka soo qaadanaya qofka joogaayo siduu noqon karaa basleed daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo safetygiisa ku qoran 500 square meter inaanu qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynayso cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay jooga marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cadooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihin iminka bal dalka u fiirso meel kastood aragtay hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay maaqoonlaan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka laftaa ka dhimataa oo waxa weeyaan qofku wuxuu ku dhintaa tahaara taagba dila qofka oo si kaliya wax alaali wax ku dhacay bayna jirin wadna xanuun buu dhintaa waxaa kaloo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira dhakhaatiirtu calcium sayidaan lafta dee qofka bini'aadamka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxaa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhakhaatiirta loo yeero sida caalamka bahalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in lasoo yareeyo microwave-ka hadday meel tahay inaad aragtay mooyaane magaalooyinka waaweyn kale dee jaarkanay wadamada jaarkanay suuqaga wadan bay xabad yar ku arkaysaa waayo markaa inagu aan 150 magaalo keliya ugu isticmaalna xaafaduba meel baa yaaleen caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawaradoodan remote baa lagaga shaqeeya qof bini'aadan ima joogo oo maximum haddaanu qiyaasno 5 kilomitr meel u jirtay dadka kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaalla ta kale waxa weeyaan waxaa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray ee dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray ee shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwave-ka iyo wax unba samaysan loo yeeray ee side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaalla taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhaba oo lahayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama antiinooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiyay ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarkaa la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaaciyay wixiiba iyo wasiirka telecommunicationka indiya maamulgadii waxa la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlaya arrintan isay ku dhici karta waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qofkan isagoo u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibkaa keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay un arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keeno cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwave-kan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane moobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu moobilku dadku kaa yariyey ama anteenka moobilku kugu
yariyay aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow mobilku kululaada dhigtana kuma hayn kartid qofka telefoonka codkiisa u googaa mobilku wuxuu isku dayayaa markuu baytarigaagu yaraya inuu soo qaato wuxuu kusoo jiito taawarka ugu dhow daarswag mobilku kululaado mobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu kasoo qaadanayo qofka joogaay siduu noqon karaa basleed daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo zayfitigiisa ku qoran 500 square meter inaanu qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynayso cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay joogaan marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cadooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihiin iminka bal dalka u fiirso meel kastood aragtay hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay maaqoonlaan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka lafta ka dhimata oo waxa weeyaan qofku wuxuu u dhintaa tahaarad hagba dilo qofka oo si kaliya wadna xanuun wax alaali wax ku dhacay been jirin wadna xanuun buu dhintaa waxa kaloo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira dhakhaatiirtu ka sheegayaan lafta ee qofka bini'aadamka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxaa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhakhaatiirta loo yeero sida caalamka baalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in lasoo yareeyo microwaveka hadday meel tahay inaad aragtay mooyaane magaalooyinka waaweyn kale dee jaarkana wadamada jaarkana suuqaqa waa inbaad xabad ku arkaysaa waayo markaa inagu aan 150 magaalo keliya ugu isticmaalna xaafaduba meel baa yaaleen caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawaradooda remote baa lagaga shaqeeya qof bini'aadan ima joogo oo maximum haddaanu qiyaasno 5 kilomitr meel u jirtay dadka kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaalla ta kale waxa weeyaan waxaa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray ee dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray ee shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwaveka iyo wax unba samaysan loo yeeray ee side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaalla taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoon gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhaba oo la hayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiyay ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarkaa la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaaciyay wixiiba iyo wasiirka telecommunication indiya maamula gedii waxa la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlaya arrinta la ku dhici karta waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qof kale siduu u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibkaa keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay un arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keeno cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxaa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwavekan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane mobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu mobilku dabku kaa yariyey ama anteenka mobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow mobilku kululaada dhegtana kuma hayn kartid qofka telefoonka codkiisa u googaa mobilku wuxuu isku dayayaa markuu baytarigaagu yaraya inuu soo qaato wuxuu kusoo jiito taawarka ugu dhow daarswag mobilku kululaado mobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu kasoo qaadanayo qofka joogaay siduu noqon karaa basleed daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo zayfitigiisa ku qoran 500 square meter inaanu qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynayso cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay joogaan marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cadooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihiin iminka bal dalka u fiirso meel kastood aragtay hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay maaqoonlaan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha
birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka lafta ka dhimata oo waxa weeyaan qofku wuxuu ku dhintaa tahaara taagba dilo qofka oo si kaliya wax alaali wax ku dhacay been tir wadna xanuun buu dhintaa waxa kaloo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira dhaqaatiirtu ka sheegayaan lafta qofka bini'aadamka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxaa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhaqaatiirta loo yeero sida caalamka bahalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in lasoo yareeyo microwaveka hadday meel tahay inaad aragtay magaalooyinka waaweyn kale jaarkana wadamada jaarkana suuqaga waa inbaad xabad ku arkaysa waayo markaa inagu aan 150 magaalo keliya ugu isticmaalna xaafadooda meel baa yaale caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawaradooda remote baa lagaga shaqeeya qof bini'aadan ima joogo oo maximum haddaan qiyaasno 5 kilomitir meel u jirtay dadka kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaala ta kale waxa weeyaan waxa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwaveka iyo waxa unba samaysan loo yeeray side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaala taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhab oo la hayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiya ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarka la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaacayay wixiiba iyo wasiirka telecommunicationka indiya maamulkeedii waxa la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlayay arrinta lasoo ku dhici karta waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qof kale siduu u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibka keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay u arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keena cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwave-kan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane mobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu mobilku dadku kaa yariyey ama anteenka mobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow mobilku kululaadaa dhegtana kuma hayn karta qofka telefoonka codkiisa u googaa mobilku wuxuu isku dayayaa markuu baytarigaagu yariyay inuu soo qaato wuxuu kusoo jiito taawarka ugu dhow that's why mobilku kululaado mobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu ka soo qaadanayo qofka joogaay siduu noqon karaa bas leer daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo safetygiisa ku qoran 500 square meter inaanu qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynayso cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay joogaan marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cadooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihiin iminka bal dalka u fiirso meel kastood aragtay hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay maaqoonlaan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka lafta ka dhimata oo waxa weeyaan qofku wuxuu ku dhintaa tahaara taagba dilo qofka oo si kaliya wax alaali wax ku dhacay been tir wadna xanuun buu dhintaa waxa kaloo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira dhakhaatiirtu ka sheegayaan lafta qofka bini'aadamka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxaa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhakhaatiirta loo yeero sida caalamka bahalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in lasoo yareeyo microwaveka hadday meel tahay inaad aragtay magaalooyinka waaweyn kale jaarkana wadamada jaarkana suuqaga waa inbaad xabad ku arkaysa waayo markaa inagu aan 150 magaalo keliya ugu isticmaalna xaafadooda meel baa yaale caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawaradooda remote baa lagaga shaqeeya qof bini'aadan ima joogo oo maximum
haddaanu qiyaasno 5 kilomitir meel u jirtay dadku kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaalla ta kale waxa weeyaan waxa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwave-ka iyo waxa unba samaysan loo yeeray side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaalla taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhab oo la hayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiya ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarkaa la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaaciyay wixiiba iyo wasiirka telecommunicationka indiya maamula gebi waxa la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlayay arrinta lasoo ku dhici karta waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qofkani siduu u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibkaa keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay un arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keeno cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwave-kan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane mobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu mobilku dadku kaa yariyey ama anteenka mobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow mobilku kululaadaa dhegtana kuma hayn karta qofka telefoonka codkiisa u googo'a mobilku wuxuu isku dayayaa markuu baytarigaagu yariyay inuu soo qaato wuxuu ku soo jiito taawarka ugu dhow that's why mobilku kululaado mobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu ka soo qaadanaya qofka joogaay siduu noqon karaa basleed daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo safetygiisa ku qoran 500 square meter inaanu qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynaysa cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay joogaan marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cadooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihiin iminka bal dalka u fiirso meel kastood aragtay hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay maaqoon la-aan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka laftaa ka dhimataa oo waxa weeyaan qofku wuxuu u dhintaa tahaara taagba dila qofka oo si kaliis wadna xanuun wax alaali wax ku dhacay bayna jirin wadna xanuun buu dhintaa waxa kaloo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira dhakhaatiirtu calcium sayidaan lafta dee qofka bini'aadamka ka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxaa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhakhaatiirta loo yeero sida caalamka bahalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in lasoo yareeyo microwave-ka hadday meel tahay inaad aragtay mooyaane magaalooyinka waaweyn kale dee jaarkana wadamada jaarkana suuqaga wadan bay xabad yar ku arkaysaa waayo markaa inagu aan 150 magaalo keliya ugu isticmaalna xaafaduba meel baa yaaleen caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawaradoo dhan remote baa lagaga shaqeeya qof bini'aadan ima joogo oo maximum haddaanu qiyaasno 5 kilomitir meel u jirtay dadku kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaalla ta kale waxa weeyaan waxa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwave-ka iyo waxa unba samaysan loo yeeray side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaalla taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhaba oo la hayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiya ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarkaa la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaaciyay wixiiba iyo wasiirka telecommunicationka indiya maamula gebi waxaa la isla qaatay oo uu shir badan
lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlaya arrintan isay ku dhici kartaa waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qofkani siduu u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibkaa keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay un arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keena cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwave-kan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane moobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu moobilku dabku kaa yariyey ama anteenka moobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow moobilku kululaadaa dhegtana kuma hayn karti qofka telefoonka codkiisa u googaa moobilku wuxuu isku dayayaa markuu baytarigaagu yariya inuu soo qaato wuxuu kusoo jiito taawarka ugu dhow that's why moobilku u kululaado moobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu ka soo qaadanaya qofka joogaay siduu noqon karaa bas leeda daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo safetygiisa ku qoran 500 square meter inaan qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynayso cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay joogaan marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cadooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihin iminka baldalka u fiirso meel kastood aragtay hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay maaqoonlaan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka laftaa ka dhimataa oo waxa weeyaan qofku wuxuu ku dhintaa tahaarad hagba dila qofka oo si kaliya wadna xanuun wax alaali wax ku dhacay been jirin wadna xanuun buu dhintaa waxa kaloo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira ay dhakhaatiirtu ka sheegayaan lafta ee qofka bini'aadamka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxaa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhakhaatiirta loo yeero sida caalamka bahalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in lasoo yareeyo microwave-ka hadday meel tahay inaad aragtay mooyaane magaalooyinka waaweyn kale jaarkanay wadamada jaarkanay suuqaqa waa unbay xabixabida ku arkaysa waayo markaa inagu aan 150 magaalo keliya ugu isticmaalna xaafaduba meel baa yaaleen caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawaradooda remote baa lagaga shaqeeya qof bini'aadan ima joogo oo maximum haddaanu qiyaasno 5 kilomitr meel u jirtay dadku kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaalla ta kale waxa weeyaan waxaa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray ee dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray ee shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwave-ka iyo wax unba samaysan loo yeeray ee side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaalla taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhaba oo la hayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiya ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarkaa la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaacayay wixiiba iyo wasiirka telecommunicationka indiya maamula gebi waxa la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlaya arrintan isay ku dhici kartaa waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qofkani siduu u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibkaa keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay un arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keena cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwave-kan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane moobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu moobilku dabku kaa yariyey ama anteenka moobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow moobilku kululaadaa dhegtana kuma hayn karti qofka telefoonka codkiisa u googaa moobilku wuxuu isku dayayaa markuu baytarigaagu yariya inuu soo qaato wuxuu kusoo jiito taawarka ugu dhow that's why moobilku kululaado moobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu ka soo qaadanaya qofka joogaay siduu noqon karaa bas leeda daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo safetygiisa ku qoran 500 square meter inaan qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynayso cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay joogaan marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cadooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha
geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 tower ka taagan yihiin iminka bal dalka u fiirso meel kastoo aragtay Hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 tower waay aqoon laan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka lafta ka dhimata oo waxa weeyaan qofku wuxuu ku dhintaa tahaara taagba dilo qofka oo si kaliya wax alaali wax ku dhacay been tir wadna xanuun buu dhintaa waxa kale oo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira dhaqaatiirtu ka sheegayaan lafta qofka bini'aadamka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhaqaatiirta loo yeero sida caalamka baalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in la soo yareeyo microwave-ka hadday meel tahay inaad aragtay magaalooyinka waaweyn kale jaarkana wadamada jaarkana suuqaga waa inta xabad ku arkaysa waay markaa inagu aan 150 magaalo kaliya ugu isticmaalna xaafadooda meel bay yaaleen caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawaradooda remote baa lagaga shaqeeya qof bini'aadan ima joogo oo maximum haddaan qiyaasno 5 kilomitir meel u jirtay dadka kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaala ta kale waxa weeyaan waxa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwave-ka iyo waxa unba samaysan loo yeeray side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaala taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro keenaan caafimaad darrada keenaan waa facts la garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhab oo la hayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiya ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarka la jaarka isagoo xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baaday 8 bilood baa la baarayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaacayay wixiiba iyo wasiirka telecommunication indiya maamulkeedii waxa la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood laga wada hadlayay arrinta la soo ku dhici karta waxa lagu qanciyay oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qof kale sidoo uu qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibka keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay u arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keena cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxa keenaya baalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwave-kan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane mobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu mobilku dadku kaa yariyey ama anteenka mobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow mobilku kululaadaa dhegtana kuma hayn karto qofka telefoonka codkiisa u googaa mobilku wuxuu isku dayayaa markuu baytarigaagu yariyo inuu soo qaato wuxuu ku soo jiito taawarka ugu dhow that's why mobilku kululaado mobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu ka soo qaadanaya qofka joogaayo siduu noqon karaa bas leer daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo safety-giisa ku qoran 500 square meter inaanu qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynayso cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay joogaan marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cadooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihiin iminka bal dalka u fiirso meel kastoo aragtay Hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay aqoon laan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka lafta ka dhimata oo waxa weeyaan qofku wuxuu ku dhintaa tahaara taagba dilo qofka oo si kaliya wax alaali wax ku dhacay been tir wadna xanuun buu dhintaa waxa kale oo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira dhakhaatiirtu ka sheegayaan lafta qofka bini'aadamka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhakhaatiirta loo yeero sida caalamka baalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in la soo yareeyo microwave-ka hadday meel tahay inaad aragtay magaalooyinka waaweyn kale jaarkana wadamada jaarkana suuqaga waa inta xabad ku arkaysa waay markaa inagu aan 150 magaalo kaliya ugu isticmaalna xaafadooda meel bay yaaleen caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawaradooda remote baa lagaga shaqeeya qof bini'aadan ima joogo oo maximum
haddaanu qiyaasno 5 kilomitir meel u jirtay dadku kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaalla ta kale waxa weeyaan waxa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwave-ka iyo waxa unba samaysan loo yeeray side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaalla taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhaba oo la hayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiya ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarka la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaacayay wixiiba iyo wasiirka telecommunicationka indiya maamulgeedii waxa la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlayay arrinta la soo ku dhici karta waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qofkani siduu u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibkaa keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay u arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keena cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwave-kan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane mobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu mobilku dadku kaa yariyey ama anteenka mobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow mobilku kululaadaa dhegtana kuma hayn karta qofka telefoonka codkiisa u googaa mobilku wuxuu isku dayayaa markuu baytarigaagu yariyay inuu soo qaato wuxuu ku soo jiito taawarka ugu dhow that's why mobilku kululaado mobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu ka soo qaadanaya qofka joogaayo siduu noqon karaa basleer daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo safetygiisa ku qoran 500 square meter inaanu qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynaysa cidda soo aragtahay iyagaa meel kala jooga caalamka ay joogaan marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cabdooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihin iminka bal dalka u fiirso meel kastood aragtay hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay maaqoonlaan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadaan qofka lafta ka dhimataa oo waxa weeyaan qofku wuxuu ku dhintaa tahaara taagba dilo qofka oo si kaliya wadna xanuun wax alaali wax ku dhacay been jirin wadna xanuun buu dhintaa waxa kaloo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira ay dhakhaatiirtu ka sheegayaan lafta dee qofka bini'aadamka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxaa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhakhaatiirta loo yeero sida caalamka bahalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in lasoo yareeyo microwave-ka hadday meel tahay inaad aragtay mooyaane magaalooyinka waaweyn kale dee jaarkana wadamada jaarkana suuqaga waa inbaad xabad yar ku arkaysaa waayo markaa inagu aan 150 magaalo keliya ugu isticmaalna xaafadooba meel baa yaaleen caalamkana in badan baa la iska weydiiyey qofka dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inaad aragtay mooyaane caalamka meelahan ay yaalaan taawaradoo dhan remote baa lagaga shaqeeya qof bini'aadan ima joogo oo maximum haddaanu qiyaasno 5 kilomitir meel u jirtay dadku kaga shaqeeya dhulkeenana waxaad arkaysaa meel walba magaalada dhexdeediiba 100 taawar wax ku dhow baa yaalla ta kale waxa weeyaan waxa iyaduna jirta oo caalamka oo dhan laisku mari waayey marka science loo yeeray dhakhaatiir loo yeeray cid walba loo yeeray shirkadaha loo yeeray iyo cidda microwave-ka iyo waxa unba samaysan loo yeeray side effect qofka bini'aadamka ku keenaya xataa loo yeeray waxaa la isla qaatay qodobo badan oo qoran oo caalamka yaalla taasaa markaa waa ay jirtaayo waa wax xaqiiqo ah in taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada gudbiya ku hadalkooda ama codadkooda ay bini'aadamka caafimaad darro u keenaan caafimaad darrada ay keenaan waa facts la isla garanayo waa xaqiiqo marka la raadiyey oo la soo ogaado xog dhab ah oo xog dhaba oo la hayo iyadoo qoran weeye maxay tahay caafimaad darrada marka bini'aadamka ay ku keenaan taawaradaas ama anteenooyinkaas telefoonada taawarada caafimaad darro fara badan bay ku keenaan iminka sanadkii dhammaaday 2019 indiya ka dhacday oo dhakhtarka yarkii meesha taawarka la jaarka isagoon xataa shaqaalaba ka ahayn ayuu kansar ku dhacay si walba waa loo baadhay 8 bilood baa la baadhayay wuxuu kansarka ka qaaday shirkadii baa loo yeeray wasiirka caafimaadka indiya iyo dhakhaatiirta indiya iyo kuwii telecommunicationka difaacayay wixiiba iyo wasiirka telecommunicationka indiya maamulgeedii waxa
la isla qaatay oo uu shir badan lagu jiro dhowr bilood lagaga wada hadlaya arrintan isay ku dhici karta waxaa lagu qanciyey oo dhakhaatiirtii soo bandhigeen qofkani siduu u qaaday xanuunka kansarka injineer marka waxa dhibkaa keena noo sheeg bal sharaxaad naga sii dadku waxay un arkaan biro dhaadheer oo taagan bal waxa keena cudurkan sharaxaad naga sii qofka aanan aqoonin taawarkaas ama birtaas cudurkan waxa keenaya bahalkan meesha saaran waa microwave wax ku tuuraya microwave-kan wax ku tuuraya inaad aragtay mooyaane moobilka xataa markaa dhegta ku hayso hadduu moobilku dadku kaa yariyey ama anteenka moobilku kugu yariyey aad ka soo qaadanayso taawarka kugu dhow moobilku u kululaadaa dhegtana kuma hayn karti qofka telefoonka codkiisa u googaa moobilku wuxuu isku dayayaa markuu bayterigaagu yariyay inuu soo qaato wuxuu kusoo jiito taawarka ugu dhow that's why moobilku u kululaado moobilkaad adigu gacantaada ku haysto kululaanaya meeshuu ka soo qaadanaya qofka joogaay siduu noqon karaa basleed daalka markiisa hore meeshuu taawarka ku xiran waxaa loogu talagalay oo safetygiisa ku qoran 500 square meter inaanu qofka kasoo dhawaan karin cidina kama shaqaysa caalamka meel taawar yaallo cidi ka shaqaynayso cidda soo aragtaay iyagaa meel kala jooga caalamka ay jooga marmayna marka waxaad leedahay taawarka shardigiisa birtan dheer ee la surayo shardigeeda koowaad ayaaba ahba in meel cidlo ah lagu suro 500 oo tallaabana aanan loo jirsanin mid kalena waa kuu sheegaya cadooshow intaasoo magaalo caalamkaaba soo martay meesha geyga soomaalida soo qaad jabuuti soo qaad kenya soo qaad miyaad aragtay meel 100 taawar ka taagan yihin iminka baldalka u fiirso meel kastood aragtay hargeysa ugu yarba waxay taagan 150 taawar waay maaqoonlaan baa jirta maxaa jira kansar mooye cudurrada kale ee ka dhasha birahan waxa ku rakiban maxaa ka mid ah xanuuno fara badan bay dadku ka qaadan qofka laftaa ka dhimataa oo waxa weeyaan qofku wuxuu ku dhintaa tahaara taagba dila qofka oo si kaliya wadna xanuun wax alaali wax ku dhacay been jirin wadna xanuun buu dhintaa waxa kaloo uu dhintaa in qofka laftiisa ay burburto oo lafta waxaan ku jira ay dhakhaatiirtu ka sheegayaan lafta ee qofka bini'aadamka ka dhista ayaa ka dhamaata sida ugu fiican ee looga badqabi karo dadkuna ay uga badbaadi karaan shirkadihiina ay ku shaqaysan karaan maxay tahay injineere waxaa la doonayaa walaal in arrinta dadku ay laga wada hadlo oo shirkadaha loo yeero dhakhaatiirta loo yeero sida caalamka bahalkan loo takooray ee dhulka looga saaray in lasoo yareeyo microwave-ka hadday meel tahay inaad aragtay mooyaane magaalooyinka waaweyn kale jaarkanay wadamada jaarkanay suuqaqa waa un xabad xabad ku arkaysa waayo markaa inagu aan 150 magaalo keliya ugu isticmaalna xaafado baa meel baa yaaleen